arrimaha ku saabsan qofka markuu geeriyoodo qofka muslimka waxaa muslimiinta nool oo xaq ugu leeyahay in la dhaqo la kafaniyo salaadii janaasada lagu tukado kadibna la aaso asalku waa sidaas waana fardu kifaaya xukunka oo haddii qaar dadka ka mid ah arrintaas ay u qumaan ama ay sameeyaan inta kale dembigu ka dhacaa haddii laakiin wax arrintaas u sameeyo la waayo dadka meesha jooga oo dhan magaaladaas degan oo dhan way ku dambaabayaan sida fardu kifaaya loo yidhahdo sidaas waa markii si caadi ay tahay oo qofka geeridii la yaqaanay cudurka aan ahayn qofku uusan dadka kale u gudbinayn cudurka yani u jidaysnayd waxaa jira marka soo cusboonaada oo xilliyada kala duwani dhibaatooyin dhaca sida hadda coronaviruska oo adduunka oo dhan ku wada cusub oo la garan la'yahay taas waxay keenaysaa marka in ijtihaad cusub iyo sidii laga yeeli lahaa wax laga yiraahdo culimada islaamka ee adduunka maanta joogtay majaamic fiqhiya ay leeyihiin ama meelaha ay yani fiqhiga isku weerarsadaan ayaa looga dooday arrintaas iyada ah dadka corona u dhinta oo haddii la dhaqaayo dhaqitaankii uu keenayo in dadkii kale noolaa uu cudurkii u gudbiyo dhaqitaankiisee laga yeelayaa markii arrimahaas la iska waraystay oo fuqahada iyo culimmadu ay ka niqaasheen waxay soo saareen sidii horeyba qaacidooyin u jiri jiray oo fiqhi ah oo ay ka mid tahay maalan almashaqatu tajlibu taysiir yani dhib hadduu yimaado fudayd ayaa imaado oo yani arrintii ayada waa la fududeeyaa iyo idaa daaqa alamru ittasac arrinku hadduu ciriiri noqdo oo si la yeelo la waayo waasac ayuu noqdaa saas daraaddeeda waxay fatwoodeen culimmadaasi in yani qofka koronaha u dhinta asagoo aan la dhaqin in la duugi karaayo sababtoo ah haddii ay keenayso yani dhaqitaankiisa in dadkii dhaqaayey ay u yani dhibaato cudurkii uu soo gaaro ah labada qof ka nool iyo ka dhintay yani waxaa lagu dadaalayaa midka nool noloshiisu inay sii socoto oo naftiisa khatar lama gelinayo marka arrintii hore ee caadiga ahayd ee markii arrintu caafimaad uu jiray oo dadku caadi isaga dhimanayeen waa la dhaqi jiray oo saasay ahayd hadday ciriiri gasho oo dhakhaatiirtii ay caddeeyeen in yani laga qaadayo arrintaas iyada ah isagoo aan la dhaqin waa la duugi karaa haddii laakiin ay dhakhaatiirtii caddeeyeen meelaha qaarkoodna waaba la sheegay in yani aan laga qaadaynin oo qofka koronaha yani uu ku dhaco haddii uu dhinto qofku wuu la dhimanayaa fayruskii gudaha u galay oo fayruskani wax keligiis noolaada ma ahee unug nool ayuu rabaa inuu ku dhex noolaado oo ku faafo qofku markuu geeriyoodana xubnihii oo dhan ayaa wada dhimanaya asna wuu la dhimanayaa haddii taas xaqiiqa ay noqotana ousan gudbinaynin cudurkiina taasna sidii caadiga ahayd ee loo dhaqi jiray ayaa loo dhaqaayaa haddii laakiin xaaladda marka hadda la joogo ee weli la taagan yahay haddii loo dhowaado oo hala dhaqa la yidhaahdo cudurka ayaa laga qaadaya asagoo aan la dhaqin waa la aasi karaa maxaa yeelay waxaa keenay yani dhibaato iyo cabsi laga qabo inuu dadkii geliyo diinteennana qawaaciddeeda waxaa ka mid waxaa la yihahda rafcu lxaraj ilahay wuxuu leeyahay maa jacala calaykum fi ddiini min xaraj diinta wax ciriiri ah ilaahay korkiina kamuuna yeelin ilahay wuxuu jecel yahay fudaydku idinla jecel yahay marka si loo badbaadiyo dadka ayaa wax looga fogaanaya dadkaas oo aasitaanka la aasaayo iyo sida loo aasaayo waxyaabaha ku saabsan axkaam gaara oo xaaladdu ay keentay iyo caafimaadku sida uu ku talinayo oo cilmiga ah taas ayaa loo raacayaa haddii marka la aaso iyadoo aan la dhaqin laguma dembaabayo way bannaantay arrintaas iyada dabcan diinteennu waa diin nidaamsan oo ad ogtihiin salaada aan maalintii 5 mar tukan ee waajibka ah hal qof ayaa dadku ay ku daydaan oo ay daba socdaan oo nabigu yiri sallallahu alayhi wasallam inma ju'ila al-imaamu liyutama bihi fa idha raka'a farka'u wa idha sajada fasjudu marka imaamku kii salaadana waa saasoo in la daba socdo oo la adeeco inta uu ku socdo wixii la isku ogaa ee salaadihii cadadu rakacaadkii haday 4 ahaayeen iyo haday 3 ahaayeen iyo haday 2 ahaayeenba uu ku socdo in la adeeco oo la daba socdo ay diintu qabtaa midda maamulka iyo arrimaha ku saabsan dawladnimadkana diinteenu waa diin nidaamsan fawdada ma ogolo wixii ka soo baxa dadka ul amriga ama madaxda ah oo markaasi macruuf oo fiican oo dadka dantooda ay ku jirto in la adeeco waa waajib waxaan lagu adeecaynin wixii macsiyo ama dembi ah sida sayyidina Abubakar radiyallahu anhu uu yiri adeecuni ma adactu Allah wa rasuulah warkayga yeela inta aan ilaahay rasuulkiisa warkooda yeelayo oo waxaan idin sheegayo ay tahay wax diintii aan ka hor iimaanayn fa in asaytu Allah hadan ilaahay ku caasiyo oo wax munkar ah oo diintu ayna qabin aan farana fala daa'ata li alaykum yani warkayga ha maqlina marka yani halkaas ayaa ay ku xiran tahay xadiidka nabiga sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri inma daa'atu fil ma'ruf wixii wanaagsan in la isku adeeco oo la yeelo ayaa loo baahan yahay marka ummadeena wax badan waxaa jira maadaama muddo dheer dadkan yani ay ugu dambeysay
nidaam hirgashan oo dadku ay amar qaataan oo la isxukumo sida adduunka la isu xukumo oo dadkeenu ay dad faraha ka baxsan oo yani siday doonaan iska yeela muddo la soo qabsaday way ku adag tahay si degdeg ah inay sida caadiga ah loo dhaqmo ee nidaamsan ee warka loo kala qaato ah yani la qabsigiisu way ku adag tahay laakiin waxaa loo baahan yahay si yani volunteer ah maadaama maslaxa laga hadlaayo cudur dadkoo dhan yani wada gaaraaye waxa laga hadlaayo uu yahay haddii talooyin la soo jeediyo dhakhaatiirta ay soo jeediyaan culimmada ay soo jeediyaan maamulka uu soo jeediyo oo la yidhaahdo dadweynow sidaas iyo sidaas ayay danta caafimaadku ay ku jirtaa cudurkan waa cudur halisa dowlado waaweyn oo dhaqaale ahaanna yani haysta caafimaad ahaanna ay u dhisan tahay ilahoodii caafimaadka iyo sida ah ayuu maanta yani dhibaato xoogle ayuu gaarsiiyey innaga soomaaliyaan nahay duruufteenna waa gaar dhibaatada waddankeena ka dhacday dhaqaalaheenna oo aan badnayn yani dadkeenna oo aan nidaamsanayn oo yani aan nidaamkii iyo si loo baahnaa digtoonidii aan aad iyo aad uga carbisnayn wax badan ayaa waxay u baahan yihiin marka isxilqaan qof walba ah inuu xaggiisa ka sameeyo loona dhaganuglaado yani talooyinka dadka anfacaya ee caafimaad ku saabsan ee la soo jeedinayo hana la ogaado waxa loo soo jeedinayo ma aha in dad lagu dhibo ama dad looga aarsado ama dad lagu xumeeye waa maslaxada sideeba caafimaadkeennu uu ku hagaagsanadaa dadkeenna sideebaan uga badbaadinaa cudurkan khatarta ilaahay baa badbaado leh diinteennuna waxayna amraysaa asbaabta inaan la imaano ilaahayna aan tala saaranno nabi yacquub baa wiilashiisa wuxuu ku yidhi markii nabi yuusuf ay soo aadaayeen wuxuu ku yidhi waqaala yaa baniya laa tadkhuluu min baabin waaxidin waadkhuluu min abwaabin mutafariqa wamaa ugni cankum min allahi min shayin in alxukmu ila lilah calayhi tawakaltu calayhi falyatawakal almutawakiluun yani wiilashii wuxuu ku yidhi hal meel ha ka wada gelin ee albaabo kala duwan ka gala si khatar haddii maalan ama cadow uu soo weeraro ama dhibaato kale la damacsan yahay ayagoo kulansan hal mar aan geb loogu dhihin ee ay magaalada markay soo galayaan jidad kala duwan ay maraan meeshii khatar marka qof uu kaga soo aada ayaga ah kaa haddii la qabto xataa ama dhibaato loo geysto intii kale ayaa badbaadaysa marka dadku inay badbaadaan ayay muhiimaddu ay tahay saas ay tahayna nabigu markuu yidhi saas yeela wuxuu ku yidhi arrintaas idiin sheegayna wax kale ma ahane xukunka iyo qadarta ilaahay baa iskale in alxukmu ila lilah calayhi tawakaltu ilaahay baa xukunka iskale wixii qof ku dhacay ilaahay baa qadara ilaahay baan tala saartay ayadoo taas ay jirto haddana udkhuluu min abwaabin mutafaraqa la yidhi meelo kala duwan ka gala marka in yani awaamirta la soo jeedinayo talooyinka la bixinayo asbaabta loogu talagelayo in cudurkan looga hortago in la wada qaataayo qof walba ayay tahay waajib sharci ah waxa la is-amraayo ama la isu sheegayana markay danta maslaxada ummadda ay ku jirto loo soo jeediyo waxaa la rabaa in loo dhaganuglaado oo la qaato ayada oo qofka naftiisa ugu horreyn uu u danaynayo dalkiisa iyo dadkiisa iyo ummaddiisa u danaynayo diinta islaamkuna ay farayso in la adeeco dadka madaxda ah yaa ayuha aladiina aamanuu adiicu llaha wa adiicu rasuula wa uli lamri minkum yani kuwa ilaahay rumeeyo ilaahayna adeeca rasuulkiisana adeeca dadka hogaanka idiin ahna adeeca oo warkooda maqla sidaas ayay ahmiye inoogu leedahay in ummaddu ay hogaan lahaatana say laga maarmaan u tahay nabiga sal lla alay slam markii uu geeriyooday asagoo nabiga aan la aasin ayaa waxaa la sameeyey maamulkii nabiga bedeli lahaa abubakar ayaa la doortay waxaa saa loo yeelan waxay tahay in la ilaaliyo kala dambaynta hadday wixii iska furnaadaan waxaa la isku khilaafayaa nabiga goormaa la aasaya kuwa waxaa laga inay dhahaan haddaan aasayna kuwa waxaa laga inay dhahaan berri baa la aasayaa khilaafkaas ayaa meesha soo gelaya isuguna khilaafkaas meesha usoo gelinba horta waxay samaysteen ulul amrigii hawsha u qaban lahaa abubakar markii la doortay kadib ayaa xilligii la duugi lahaa ayaa la xadiday marka saas ayay muhiim u tahayoo waa waajib yani diintu ay qabto in ummaddu ay hogaan leedahay oo warkooda yani hogaankaasi la maqlo wixii maslaxada iyo ummadda ay ku jirto macsiyo iyo munkarna aan ahayne ilaahay daacadiisa iyo dadka dantooda ay ku jirto in la ismaqlo ayay diinteennu amraysaa saasayna ummaduhu horumar ay ku gaaraan ummaddeena soomaaliyeedna aan ugu baaqaynaa inta xaaladan aynu ku jirno ee saan u adag caafimaadkii arrimaha ku saabsan qof walba mas-uuliyad ayaa ka saarane in mas-uuliyaddaasi si wada jir ah loo wada qaato kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyatihi waxaa tihiin dad wax loo diray dhammaantiinna waxaa laidin weydiinayaa wixii la idiin diray marka qof aan mas-uuliyadi saarayn ma jiro mas-uuliyadda unbaa kala waaweyn meelaha mas-uulka laga yahay unbaa kala duwan laakiin qof walba meesha uu joogo ayuu mas-uuliyad ay ka saaran tahay marka in saas loo fahmo talooyinka la qaato si cudurkan looga hortagana aad iyo aad ayay muhiim u yihiin saasayna culimmadana ku baaqeen oo loo sheegay hadda ka hor in dadku ay aad iyo aad isu ururiyaan oo ay yani ay ku dadaalaan nadaafadda ay ku dadaalaan yani waxyaabaha caafimaadka uu sheegayo ee cudurkan looga hortago marka saas in baaqaas lasii xoojiyo laguna celceliyo aad iyo aad ayay muhiim u tahay arrintaas iyada doorka culimada soomaaliyeed waa dowr muuqda yani waxaa soomaliya ku maamada xil wuxuu dhibaa qofkii garanaya marka culimadu maadaama ay xil ay garanayaan uu jiro oo ah yani ay dhibayso
mas-uuliyadda ka saaran ummadooda waxaa la rabaa in haddii ay ka gaabiyaan xataa inay dib isu xusuusiyaan oo waxa ummadda dhibaaya in uu dhibo ayaa la rabaa. maxaa yeelay alculamaau warathatu lambiyaa, culimmadu waxay dhaxleen nabiyada. nabigeena sal alla alay slam oo ugu dambeeyeyna waxaa lagu tilmaamay sifadihiisu inay ahaayeen laqad jaa'akum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canidtum. rasuul ayaa idiin imaaday idinka idinka soo dhex baxay oo ay dhib ku tahay kuna culus tahay waxa idinka idin dhibaaya. nabiga sal allahu alay wasalam dhibaatada bulshada iyo waxa soo gaaraya dhib ayay ku ahayd oo yani uu ka xanuunsanayo. marka culimadan maadaama ay warathatu ambiyaa yihiin waxba igama gelin iyo dad kale aan ku hadlaynaynaa iyo lama rabo. waxaa la rabaa inay dhahaan mas-uuliyaddan annaga ayayna saaran tahay. maxaa yeele dadkii ayaa dhibtoonaya, dadku wixii ay ku dhibtoonayeen ka qaaditaankeedana dadka uga horeeya ee mas-uuliyaddaas inay qaadaan laga rabo ayay culimmadu yihiin. marka yani aad iyo aad ha loo dadaalo. dowrka culimadana ummadda soomaaliyeed wuu muuqdaa, way aaminsan yihiin, warkooda way dhegaystaan, laakiin waxaa la rabaa dareen oo mushtarag oo ka wada dhexeeya inuu sheekh walba oo yani masaajid ama imaamka ah ama ka khudbeeya ama dad yani xeer haysta ama markas diini ah jooga inuu yani isu dareemo in dadkaasi caafimaadkooda badbaadadooda inuu qeyb ka yahay oo mas-uul uu ka yahay. oo haddii dadkii wacyi gelin waayo oo xanuunkii iyo arrimihiisa u jireen dareenkaas aan la gelinin oo si yani maxaa iga galay oo kale isaga socoto oo dadkii meeshaasi ay soo daataan oo cudurka intay iswada gaarsiiyaan ay soo dhacaan, yani qofkii asaga sababtiisa meesha la isugu imaanayay ama mas-uuliyaddaas saaraa ama dadku ay fiirsanayeen oo laakiin waajibkiisa qaadan waayey dadkan aan ku baraarujinin, qofkaasi taariikhduna way xusaysaa, mas-uuliyaddiisa inuu ka soo bixi waayana way caddaanaysaa. laakiin qofkii dareen isgeliya oo xanuun ay ku hayso waxa dadka xanuujinaya oo intii tabartiisa dadaala yani wuxuu noqonayaa qof waajibkiisiina gutay, ummadduna way wada arkaysaa qofkii dadaalaya iyo kaan dadaalaynin. marka culimada waxaa laga rabaa inay dadaal muujiyaan oo xilliyada dadku ayna baraarugsaneyn ayagoo ay ka hor baraarugaan khatarta cudurka uu leeyahay. inta dadku ay dareensayiin in ka badan inay dareensanaadaan sidii dadka ay ugu baraarujin lahaayeen. wixii tala la soo jeediyana dadkii qaadan lahaa ee dadka sii gaarsiin lahaa inay noqdaan ayaa loo baahan yahay. idinkana waxaan leeyahay waad mahadsantihiin wacyigelintaas aad ummadda u haysaan iyo sida la isu wada baraarujinayo. waxaa la rabaa qof walba ama hay-ad walba ama oo soo ka mida maalan warbaahinta inay dhinaceeda ka qaadato. dadka iyo bulshada iyo dadweynahana waxaa la rabaa inay ayagana u dhaganuglaadaan fariimaha. culimadana waxaa la rabaa iyo madaxda iyo maamuladana sidaas si la mid ah in qof walba xanuun ay ku hayso culayska meesha ka jira ama dhan dhaqaale ha ahaado ama dhan naftii oo baxaysa ha ahaato, waxaasoo dhan waa mas-uuliyad wada jirta. marka aad iyo aad ayuu idinka mahad celinaya. culimadana waxaan ugu baaqayaa dowrkooda inay qaataan. maanta waa maalinkii la midoobi lahaa, waa maalinkii dadka wax la gaarsiin lahaa, waa maalinkii dadka loo kaalmayn lahaa oo duruufaan jira wax laga qaban lahaa. marka xaaladdu sidii caadiga ahayd way ka baxsan tahay. marka waxaa la rabaa si aan caadi ahayn in loo shaqeeyo si xaaladda loogu soo celiyo sideedii hore ee caadiga ay u ahayd.